وزير الدولة نبضينta iyo horumarinta gobolada bariga Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar oo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ugu sugnaa soo afjarida colaadii muddada badan ka aloolsaneed koonfurta gobolka Sool ayaa maanta xarunta maamulka gobolka Sool kulan kula qaatay guddiga nabadgelyada iyo sidoo kale culimaa u diin iskood soo abaabulay oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa dhexdhexaadinta beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhaxmartay waxayna iska xog wareysteen halka ay marayso xaaladda nabadgelyada gobolku kulankaas oo saxaafadu dibajoog ka ayaa markii uu soo dhamaaday waxa saxaafada si wada jir ah ula hadlay ugana xog waramay kulankaasi barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir iyo sidoo kale wasiir dawlaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada bariga Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar ilaahay baa ku mahadle aan kala ugu mahadcelinayaa waxgaradka iyo culimada iyo maamulka gobolka iyo madaxda ciidanka ee isdhinac taagay arrinta sidii doorkan wax badan looga qaban lahaa loola dirdirgelin lahaa dareenka ay shacabku ka bixinayaan dhibaatada ay ku haysataa dawladdu u soo jeedo arrintaas sidii loo xalili lahaa progress ama bilow aad u fiican baa saaka ka muuqda wax badan baan isla qaadanay dib yar waa ku technically waxaan rajaynayaa saddexda maalmood ee soo socda in aan dib ugu joogaan u baaqdo meel ay dawladdu ku ogaato laga wadi karayo ay istaagan tahay maanta aanu ku ogaana arrinta beelahaas anaan damay dhaliil dambana inay ka imaan dhibaato dambe dadka uga timaadaan inay jiraan ilaahay saasa ka rajeynaya meeshii ugu qurux badneed bay saaka maraysaa hadii la yiraahdo aad iyo aad baan u rajeynayaa inay saa ku soo gabagabowdo gudoomiye waxa jirta in saacada ka dhawaajisay ganacsadii qaadka cashuur dheeraad lagu soo rogay oo kabadhadii laga soo ursaday bajaajleydii oo iyadu ganacsatada magaalada yar ka ahayd wadadii weyneed laga riyadan ognahay magaalada inay suuqyo badan lahayn oo lambar 1 ka magaalada oo mar ahayn sicir bararka sheegtay oo ganacsato magaalada joogta ayagu wadaan hawlaha suuqyada jiraan abaar ay jiraan gobolka qayb kamid ah ay xiisad colaad ka taagan tahay ma ahayn xilliga abaaraha iyo waxna jireen inaad dib ugu dhigtaan qoladina maamulka horta tan xiisada colaadada taagan ma jirto oo aad ka hor haysan in xiisada colaadada aan taagnayn wada hadalladii nabaduna ay socdaan shirka hadda aan ka soo baxnay aha shirka aan la galnay guddiga wada hadalka waday taasaan kale ay abaartuna de waxaan dadka dhala qabno ilaahay baa jibin karaya wayna aafideeduna waxa weeye gobolada ugu baahida badan bin hadda ku jirna xagga abaarta sixir bararka iyadana de go'aamaha laga qaatay baan ku yiri go'aamadii laga qaatay baa la fuliyay bismillaahi kariim tan qaadka de cashuurta lama joojin karayo qof cashuurta istaajin karaya ma jiro aniguna cashuurta ma oran karo hala joojiyo dawladda hoose ma oran karto hala joojiyo laakiin waxa la rabaa de in uu wax la saxal rabaa tiina waa la saxay waa la dhameeyay waa la isku afkartay kulli wax maray waa arki doontaan dumarkii intaana heshiis baa laga gaaray degmada iyo gobolka iyo ganacsatada idinkana de kulli waxaan rajayn doonaa bismillaahi kariim inaad marka hore qayb baa ka haydeen tan nabadda taabaatana qayb baa ka haydeen hadeerna de shaqada dadku hayseen in ayadana bismillaahi kariim waxaan rajaynayaa dirdir gelisaan saanada waxa jirta gudoomiye xalay qof lagu dhaawacay degmada Dawlataag arinta maxaa noo sheegay arintaas waa jirta kulli baaristeedana waa socotaa dhaawacna wuxuu ahaa dhaawac fudud buu ahaa bismillaahi kariim waa la keenay deewayadana baaritaankeedii laamihii ku shaqada lahaa baa wada Samiir Saciid Bile Bulsha TV Laascaanood